بسم الله الرحمن الرحيم ورتلك كوباد أولا وحام هذا الله سبحانه وتعالى مرك اللوات وحان كلو هذا علنا هي بهذا الصحافة نوصل بوقتي ديوان كنجي أو دقمة مرتشيلي هاسا هاته وحاكلو مانتي نوقت معدن حرمت النادي عافماتك بالشكاب markaan si guud uga warbixiyo baahida caafimaad oo ka jirta Mirjicli iyo nawaaxigeeda. Mirjicli horta waa deegaan weyn oo aad u ballaaran, waa magaalada aad aragteen oo inta aragteen la eg bahdina saxaafadda marqaatiga ka tihiin marqaatimo doontada magaalada inta la eg waxa hoos yimaado ilaa 12 deegaan oo kale. 12 kaas deegaan oo hoos yimaado ee magaaladaas xarunta caafimaad oo caafimaadka Allah ay markaan ka furan waa xaruntan waxa intaas ku darhayaa oo ka jira deegaankan baahi caafimaad oo zaa'ida markii aan aragnay baahida deegaankan ka taagan oo baahi aad u daran oo noqotay gabadhii umulaysa in loo qaado 50 kiiloomitir cadaado noo jirta ama cawdaq oo noo jirta 35 kiiloomitir ama dhuusamareebo 52 kiiloomitir noo jirta markii aan aragnay gabadhii umulaysa halka in loo qaadayo kuwa dhex ku sii dhinteen iyadoo la sii sido oo toodii dhamaatay ay noqotay dadka fuqbaxaya in ayaga laftirkooda lala aado halkaas oo aysan jirin wax caafimaad deegaankii oo isbitaalkii weynaa oo xiran yahay intii 5 sano isbitaalkii weynaa ma shaqeyn waa ka xiran yahay magaalada isbitaalkii markaan baahidaas aragnay aan waxaan sameynay isbitaal bareefad oo lagu hirgeliyay dhalinyaro deegaanka oo tashatay ay hirgeliyeen baahidii deegaanka ka jirtayna bar ma dabooli karo bal iska daa inuu ayadii dhan daboole bar kamida ma dabooli karo waxa hirgeliyay dhismihiisa jaaliyad u dhalatay Mirjicli oo joogtay UK iyo Nairobi labadaas jaaliyado isgarabsada hirgeliyay markii ay hirgeliyeen oo isbitaalkii la hirgeliyay isbitaalkii si ay wuxuu ku shaqeeyay isxilqaanaha dadka deegaanku ay shaqadiisa ku sii wadeen ayaan intii ka bacdi waxa timid hay'ad la yiraahdo AMC oo ka timid degmada Cawdaq markay timid hay'adii muddo adiga hal sano ay ka shaqeynaysay mashruuci markuu ka dhamaaday hay'adii way iska baxday markay iska baxday ilaa xilligan baahi caafimaad ayaa deegaanka tabtii iyo tabka daran uu qabay baahida caafimaadka cid dabooshay lama helin ilaa markii laga reebo farmashiyaal dhowr oo yar yar oo bareefado oo isbitaalkan hoos yimaado magaalada ka furan marka waxaan codsanaynaa anagoo bahda caafimaadka Mirjicli anagoo dadka deegaanka ku nool dhalinyarada intaas u soo joogay Mirjicli waxaan codsanaynaa inay caafimaad hesho waxaan ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka Galmudug in ay il gaar ah u yeerato Mirjicli markaan ka hor il looma yeelan deegaanka inta la oo 12 deegaan hoos timaado iyo magaalada inta la eg macquul ma ahan aqli bini aadanka ma gali karto inay caafimaad la'aan noqoto bismillaah awal magacayga waa Jawhar Axmed Maxamuud waxa ahay maxaa lahay laboratorysta ahay labka soo bartay maxaa lahay wax ka soo baxay jaamacad leeyahay Safaano 2020kii bish 9 ka qalin jabiyay maxaa lahay xamra joogaan markaa maqla deegaanka iyo baahiyaha ka jiro iyo meeshan awalba ani dhalinyarada inta ka tagtay oo waxbarashada xagaas soo aaday xamar kamid ahay marka waxa jeclaystay ina ani baahiyaha iyo waxyaalaha inta ka jira markaan maqlay ina uga faa'iideeyo wixii ani aan soo bartay oo deegaanka ku soo celiyo marka saas daraadeeda inta imaaday marka ani inta imaaday isbitaalka weynaa xirnaa anigiyoon oo qalab iyo waxyaabo igu filan aan haysanin marka iskaashi badan dhalinyaro kale waxyaabo iskaashanay waxa isku afgaranay ina u keeno halahay xaruntan caafimaadka ee Bulshakaab oo inta ka furno marka maxaa dhahay inkastoo hadda aan wali aanan magaalada baahida ka jirta aan wali wada daboolin oo haddana maxaa dhahay qalabkii oo isbitaalkii wali weynaanin oo qalabkii oo nugu filnayn maxaa la yiraahdaa kiisaska qaar aanan dabooli karin oo kaleeto qalab la'aan jirta awgeed oo hadda dhihi karo macnaha hadda anaga haysan lahayn aqoonteena oo qalab nagu filan aan heli lahayn baahida waa dabooli lahayn oo ka jirto halkaan alxamdulillah anagu inta dadaalkeena waa inta ku kaalmeynaa wixii awoodno dadka wixii inta ka dhiman transfer oo sameynaa oo istaalada kale oo dirnaa
kiisaskaasoo kaleeto wixii anaga qaban karna intaa ka qabanaa alxamdulilah waxaa inta ku joognaa ilaa 3 dhakhtar anigoo laab ah gabar midwifery iyo wiil maxaa dhahay medicine and surgery ah oo dhakhtarka cudurada guudna hadda inta faliyo maasha Allah marka intaan hadda ku shaqeyno marka waxa dhihi lahaay ani deegaankeena inta naga dhiman ina dadka kale to walaalaheen iyo xala jaaliyadaha iyo inta dibadda dadka ku maqan oo dhan aysan u dayma la'aanino deegaanka wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo dhamaantoodba waxaan ku codsanayaa inaysan deegaanku waa deegaan ka tirsan deegaanada Galmudug inta uu u baahan yahay in uu helo oo caafimaad ahaantii haday noqoto horumarinada kale to dhan anaga ururo badan oo hadartan ka jira degmada waa la sameeynaa waxa la ururka kubciyo kale to ururada wacyigelinta kale caafimaadka kale xilli roobeed waaye waxa arkay shal hata kiisas waxa qabtay oo dad waxa la fuuq baxayaan oo aad waxa qaar miir lahayn aan leekana marka alxamdulillah horto kuwaas oo kale to iyo waxyaabaha fududan waan daboolnay inta tabarteena ah alxamdulillah marka waxa qof kasta dhihi lahaa meeshan masiirkeed uu qoseeyay iyo dhamaan Galmudug oo dhan ugu baaqayaaba sida ugu degdegsiyaha badan leh shaaleen ugu soo jawaabaan baahida deegaanka ka jirto